marka hore waxaan salaamayaa ururka bangiyada Soomaaliyeed soo qaban qaabiyay munaasabadan sanadlaha ah ay u soo qabtaan dhammaan sektorka bangiyada oo ay ku soo casumaan cid kasta oo wada shaqeyn la leh oo ka mid yahay bangiga dhexe waa munaasabad aad u muhiim ah oo la isku weydaarsado fikrado runtiina sanadkii ina dhaafay oo aan goobjoog ka ahaa dadkii ka soo qayb galayna ay qireen muhiimadda ay leedahay munaasabadaas guud ahaan bangiga dhexe wada shaqeyn aad u dhow fiican baa kala dhaxaysa ururka bangiyada waa uga mahad celinayaa dadaalka ay ka muujiyeen sidii ay iyaga oo danaha bangiyada ilaalinaya haddana bangiga dhexe iyo hay'adaha korjoogteynta bangiyada leh sida dhow ay ula shaqeeyaan hadday tahay xagga shuruucda hadday tahay caqabadaha jira iyo hadday tahay sidii loo horumarin lahaa guud ahaan sektorka waxaan leeyahay hambalyo sanadkii labaad sanad walba uu sii xoogeysanayaa ururka bangiyadu annaguna waxaan diyaar u nahay sektorka in aan wixii aan la qaban karo regulator ahaan annagoo ilaalinayna hantida ummadda korjoogteyntii iyo waajibaadkii aan lahayna ka gudanayna haddana inaan ka shaqeyno sidii ay ku heli lahaayeen bay'ad ay hore ugu maraan oo ganacsiga bangiyada fududeysa mar kale waa idin mahadnaqayaa waxaan idin leeyahay ku mahadsantihiin casumaadda iyo martiqaadka ka soo qaybgalka xafladdan aad iyo aad baan idinku boorinayaa inaad sii wadaan dadaalka waxaan idin leeyahay hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullah